Sheekh Kenyawi ayaa waxa uu bilaabay ololo uu dhalinyarta Soomaaliyeed oo ku dhiirigelinayo in ay markaasi ay shaqeystaan. Warbixintan iyadoo faahfaahsan waxaa noo diyaarisay wariyaheenna Najma Cusmaan Yuusuf. Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Kenyawi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Kismaayo. Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyawi ayaa wada olole ballaaran oo dhalinyarada ku dhiirigelinayo in dhalinyarada ay shaqeystaan oo ay qabtaan shaqo kasta oo loo baahan yahay. isagoo sheekha intii uu joogay magaalada Kismaayo booqday goobaha kala duwan ay dhalinyaradu ka shaqeeyaan sida suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo iyo goobaha lagu hagaajiyo biraha isla markaana lagu tumo iyo sidoo kale goobaha lagu hagaajiyo baabuurta. sidoo kale sheekha ayaa booqday deegaanka Goobweyn oo Kismaayo u jirta 15 kiiloomitir. waxa uu tagay beeraha waxa uu ka qayb qaatay shaqada falista beeraha asagoo ku guda jira shaqada beerta ayuu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay tabcashada beeraha. ujeedada uu sheekhu goobahaasi u tagay ayaa kamid ahayd baraarujin oo dhalinta Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta Kismaayo ku nool uu ku baraarujinayay in ay macaan tahay soo saarista wax gacantaada aad ku goosatid in laga fogaadana ay waajib tahay shaxaadka taasoo ugu magac daray shaqo sharaf leh shaxaad ayaa ceeba. walaalayaal halkaan taagnahay runtii waa magaalada Kismaayo kaafis weeyaan. waxaan joogaa goobtii in badan oo Soomaaliyeed runtii dad korama ah ay ka shaqeystaan ee xoogooda ku maalaan. barnaamijkan runtii aan la qayliyayo aad aragtaan ee aan baali wax lagu dhaqay lagu tirtiray aan wato waa barnaamijkii shaqeyso ha shaxaadine ilaahay waxaan ka baryayaa oo aan rajaynayaa in barnaamijkan dad fara badan ay maaragtay ilaahay uu wax ugu bedelo oo wacyi gelin xoog leh runtii ay ku helaan. walaalayaal waxaad garanaysaan shaqadan gacantu ay qabato waa shaqada ugu fadliga badan. barnaamij walba oo barnaamijyadeeda shaqeyso ha shaxaadine aad baan runtii ugu celceliyaa axaadiistan. waxaan dhiirigelinayo waa wax gacantu qabato. rasuulka markii la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam ayul kasbi afdal shaqa la qabtaa kasab loo qabtaa maxaa ugu fadli badan wuxuu yiri amalu rajuli biyadihi. xadiiska waxaan ugu celcelinayo in la xifdiyo la doonayaa. walaalayaal waa barnaamijkii shaqeyso ha shaxaadine. halkaan joogaa waa halkii warshadihii weeyaan. waa warshadihii biraha lagu sameeyay. birahan waa birihi aynu wax ku soo saaranaynay. waa kuwaanu qoryaha ku jaranaynay. waa kuwaanu beeraha ku falanaynay. waa kuwii aynu nolosheena aynu ku maareeynaynay weeyaan. shaqadan aad arkaysaan dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya. shaqaduna waa xalaal. shaqadan dadkan walaalaheena waxay uga dayanayaan dad kale ma ahe waa anbiyadii Ilaahay alayhi salaam. nabiyullaahi Daawud wad garanaysaan ma shaqo kale uu qabanayay nabinimada ka soke quudkiisa wuxuu ku soo saarayay waxay ahayd biraha Allah dhahaya wa alanna lahu alhadid waxaanu u jilcinay birahaanu u jilcinay gacmuhu ku sameey jiray. dadkan hadda dubii waxay ku sameynayaan laakiin gacantu ku rogrogi jiray Ilaahay baa u jilciyay. rasuulkeenuna ku salli xabiibkaaga حبيبك شغله كبرية صلى الله عليه وسلم كديد لين ليهي وكأولها صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن النبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وحليه قفنا معنا شقو أما عنو قفنا معنا عنو كخير بدن كنا حلال سن مرنا معنا كواي قعميس سو سارين ماهن وبرنامج كيني شقيسو هشحادينه وقيبتيدي سدحاد قيبي هore waxaan ku soo duubay waxay ahayd Nairobi ariga iyo Kenya imikana waa Jubaland oo dhulkeeni Soomaaliya. Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waa Kismaayo kaafiso wad arkaysaa khayraadkii badda aynu kala soo baxaynay. dad baa ku nool oo dhalinyaro ku nool
dhalinyaradan waa dhalinyaro wax baratay qaar ka soo baxay dugsiyada sare qaar jaamacada ka soo baxay qaar macaahid iyo kolleejyo ka soo baxay shaqo lama wada heli karo xafiisyo ma wada tegi karaan madax ma wada noqon karaan maalin kuma taajiri karaan laakiin waxay door bideen oo ay doorteen oo ay qaadeen wadadii shaqada wadadii shaqayso hashaxaadine kan ku xijistaa oo tacabka aan ku beerto Allah ku barakeey xoogaaga maal waliya maya xoogaaga maal intaan dadaalay waa dadaal xoogaaga maal adoo gacan go'an oo jaban waan waxba tareenin ayaad waxaad diiday inaad tuugsatid oo gacantaada ay sarreysa laakiin aan waxaan ku hayaa oo aan soo arkay dad xoogan oo caafimaad qaba dhalinyaro ah oday baa tahay oo dhalinyaro oo wax soo bartay aqli cilmi iyo xoog iyo dhalinyaro isku darsaday oo haddana aan shaqaysanin gacantooda wax ku soo saaran karin dabaalla ah iyagoo dhan soo garan oo غيركود dul saaran ayaa ku soo arkay kuwaas oo ku anwaanaya Allah ku barakeey xoogaaga Allah barakeey caafimaadka Allah ku barakeey wax qabadka Allah ku barakeey aad iyo aad ku jecel waan ku soo duceynaya insha Allah taala haduu Ilaahay yaraayo Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi ayaa sheegay in Kismaayo kaliya uu safarkiisa ku ekeen balse barnaamijkan ugu magac daray shaqayso uu gaarsiin doono ilaa gobolada dalka نجمع إسماعيل سفر باهنتا جبلان مقالة كسمايو